وويل سوماليات oo lahaa himilooyin farshaxan oo uu qalinkiisa ku suureeyay sawirrada iyo muuqaalada mas'uuliyiinta Soomaalida iyo waliba kuwa wadamada caalamka xukumo dadaal dheer ayuu ku bixiyay himilada hankeedu aadka u adkaa wuxuu hal mar ka soo dhaxbaxay bahda farshaxanka Soomaalida Abshir Jaamac Taatiko farshaxanimadu ma sahlana marka ay jiraan duruufo ku diidaya inaad ka run sheegto himilada fog ee sawirka marka aad ku dhex noolshahay bulsho si weyn uga soo horjeedo farshaxanka noocaana deegaanka uu ku noolaa Abshir waa degmada Burtile oo ka tirsan gobolka Nugaal magaalada Garowe waxa u jirtaa dhowr kiiloomitir kama dhisna goobo lagu barto farshaxanka iyo aqoonta sare ee la xiriirta arrimahaasi Abshir ayaa yiri mar uu warbaahinta Soomaalida la hadlayay sida tan waxa ay fududeysay in aan barto farshaxanka qof walba oo dunida ku nool waxa uu leeyahay hami iyo himilo fog kani hamigayga ayuu ahaa waana waxa aan aadka u jeclaa in badan oo noloshayda kamid ah gacanta ayaan ku hayay in badan oo waan ku celceliyay anigoon tagin goobo waxbarasho waxaana ii suura gashay inaan noqdo farshaxamiiste bilowgii sanadkii 2016 sawirrada Abshir waxay ka dhex muuqdeen baraha bulshada waxaana la arkayay isagoo sawirayo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo waliba sawirro kala duwan balse waxa uu sheegay inuu kala kulmi jiray mas'uuliyiinta Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed dhiirigelin oo kaliya mana jirin mas'uul ama shakhsi Soomaaliyeed oo niyadiisu u sheegtay inuu igu garab qabto hankayga walow aan guul ka gaaray ayuu yiri Abshir tani waa sawirkiisii ugu dambeeyay oo uu ka sawiray madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo wax badan ayaa hadda isbedelay safaaradda Turkiga magaalada Muqdisho baasi lama filaana ii soo wacday waxayna ii sheegtay war aan in badan ku taami jiray taasi oo ii suura gelisay inaan ka daalin farshaxanka iyo qurxinta sawirrada muddo badanna aan hayaankeeda soo hayay waxaan sameeyay sawirka Erdogan waxaana soo galiyay barta Twitterka dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dadaalay inay gaarsiiyaan mas'uuliyiinta Turkiga kadib safaaradda Turkiga ayaa soo wacday waxaana kala kulmay soo dhaweyn iyo dhiirigelin waxayna safaaraddu ii ballan qaaday inay isiin doonto waxbarasho sidoo kale tana qalabka aan u baahanahay aan ka heli doono fursadda waxbarashada ee la siiyay Abshir ayaa noqonaysa guushii hayaanka dheer ugu jiray oo uu buuxiyo booskii farshaxanadii isaga ka horeeyay